يعني dadkan dad wax arkay ma hadad madow iskuulka afartii galaaska wala isaga soo baxay galaaska koowaad ilaa iyo galaaskii afraad ayuu macallinkii yiri weligood waa dadkii ugu horeeyay madow ay jirkooda taabtaan saas ay idin taabanayaan timahayaga u taabanayaan 2004 ayaa waxa aan damcay in aan wadankii qabto oo aan dabeedna bal soo eego cayn ku yahay maadaama la yiri nabad baa ka jirto ka bacdi wadanka UK la yiraahdo qabtay tababar uu keentay meeshan dhowr sano oo ku marayna meesha والحمد لله تمركا magacay waxa Axmed Maxamed Guuleed qurbaha waxaan deganahay imika 7 sano waxaana imika 1989 waxaana la socday flight-kii mid ka dambeeyay Somali Airlines da'deedu waxay ku bitin jir Hargeysa Soomaaliya waxaan ka xasuustaa markii warsan iskuulka aan galay 1984 iskuulka magaciisa waxa la jiray 12 Oktoobar maanta waxa la radaa gacmo dheere waxaan xasuustaa markaa wadanka dib ugu noqday halkaan kaaga bilaabo abti 1983 dagaalkii baa bilaabmay dagaalkii markuu bilaabmay 83 waan ka qaxnay magaalada dagaalku maalintii 8 cisho socday waan qaxnay markaan qaxnay adigu meel hor hadal la yiraahdo ayaan qaxnay kabacdi dagaalku inta uu daba socdo diyaaradii baan rusheynaysa ya diyaaradda markaan ka qaxnay dharka cadaanka xataa waan iska bixi jirnay aan diyaaraddu noo arag tabeedna adigu dulcad meel la yiraahdo qabanay dulcad oo Itoobiya ka tirsan Itoobiya intii aanu joognay wallahi ma xasuusta laakiin walaashii oo markaa ka shaqeysay safaaradda Djibouti ayaa tabeedna soo doontay inta xaq Djibouti soo martay Itoobiya noogu timi iyada ayaa naga xaysay safaarad waxay ku taallay xamar laakiin safaaradda Djibouti u shaqeyn jirtay xamar ku taala على كل حال ادو حمر بون تغني حمر markaan tagnay sanad qiyaasaan sanad buu joogay halkaas sanad ka bacdi markaan joogno waan ka soo dhafnay 24 bishii 1989 waxaan nimid Jarmalka shantii galabnimo Frankfurt airport keeda nimid ka bacdi niman u shaqeeya Somali Airlines ayaa markaa إيدي باسبوردي ني شرعيدي كان واي أنا ديارتي دوما هين إني فرانكفورت منطقة ترانسوت بنك واحد فرانسيسكا باسبور كلام ورفيس فرانسيس سنسيدني لما سوماليات بنو يوم مركا وشقية سومالي إيرلاين تا ربي مركا إني أوجادن باسبور هذا الشرعي فيزا النوبية لا أباهي مركا وحكيري إذا لما هذا إذنك دولة الشرمكة عيان شو دولة الشرمكة عيان منطقة أنا isu dhiibaya iga taga sidii bay dabadna nimankii aaba isku qabsadeen ka bacdi markii ay nimankii oo aaba ku yiri mataqaana waxba idin ma hayagu way iska tageen kuwii Jarmalka ha markaan qaabilay aaba ku yiri anigu refugees baan ahay waxaan ahay nimanka mataqaana oo dawladda hore Soomaaliya mataqaana ay daba socotay mataqaana xabsiin inta leeg baan ku jiray buu yiri marka anigu waxaan rabaa magangeliyan rabaa buu yiri أباي مركز زبط وحبس وجود وحها نين كشقية متقنا بربرة وحها نين من كمتقنا اللي يقارن إذا حبسوا تصرف الدنيا مركا رجي بربرة لا قادوها حمر الوحدة مركز سيدا سيو أباي مجدلية ويديس دولة الشرمكة وحنت النما ويديس سيدي ومركا عندك نلقو قابله أباي حقول شيء حبس حمر كوي على لانتبور مركا دولة الصومالية أياد رجع مجا كل ما تقان وقوي وربي صوريين وتبعنا أنت أي سوق قاعد كرين هو سوق قاعد حبسي بكوريدين أنت كان لده الكبار الأولين فرانكفورت مركي دولة أنا قابل شيء وين قاعد كان بين الجيين كامل هذا شوال بخ سنة تكون حوها كل نسقال بوليستيتي نسقال كين أنا قد دعي هذا مركها قياسه كوبي تنشر أيانها كام ما حسوستين تاني كشرني waxaa adigu nalagii ka bacdi tuulayar oo ku taal Northern Festival Mark Shakhays halkaas waxay tuulayar oo waxa deganaa gabigeeduba 1500 qof gabigeeduba waa afar wado kala sii jeeda ya marka waxa la yiri aniga iskuul waxa la yiri maadaama Jarmalka aanad garaneyn iskuulka ka bilowbaa la yiri adigu ciyaal yar baa la dhex fadhiisay
ya ciyaalkaasina weligood markii ugu horeysay arkaan wax madow ya ilaa hore ma arag waa tuulo yar iyagu baa shaqaana ya waa isku wada families meesha wada degan oo is wada dhalay tuulada dhan baa hadii lagu sheego adigu tuulada waxaanu deganeen muddo 4 sano ah 4 sano markaa diwaan la qabsanay oo inkastay dhibaato ahayd bilowgii oo mataqaanaa luqadu iyo mataqaanaa hatta cuntada soo loo iibsaday ay nagu adkayd ya on kalluun iskaga nooleen iyo badanka kalluun baan cuni jirnay mar dambe ayaan baran doonaa meel hilib lagu iibiyo iyo turki iyo waxaas adigu maalintii ugu horeysay iskuulka يعني dadkan dad wax arkay ma hadad madow iskuulka afartii galaas baa wala isaga soo baxay galaaska kood ilaa iyo galaaskii afraad adigu qaar noo soo dhawaaday qaar na taabtay wax walba way lahayd isku jireen adigu ardaydu يعني dadkan waxay u haysteen ba markan iigu horeysay galaaska anibi dad يعني maskaxdooda ma aqaan wax ku jireen laakiin in TV ay ka arkaan mooyaane ay macallinkii yiri weligood waa dadkii ugu horeeyay madow ay jirkooda taabtaan saas ay idinta taabanayaan timahayaga u taabanayaan marka taas baa adigu mataqaanaa aan la kulmay anigu inkastaan ku eegay waxba aan ka xasuusin haddana macallinkii baa yiri iska daayay taabtaan macallinkii baa xataa ku yiri orda oo taga taabta waa dad inaga naga mid afkii degay saas bay noo taabteen moogtay inkastay ugu leeyahay aan ciyaal iska ahaayeen ciyaal matana TV-ga soo ka arkada waliba waqtigaan waxa jiray 3 jaran oo kale ay taaba jiray RB CDF iyo VDR mid la yiraahdo oo sidii habeenka ay baqtii jireen baqaarkood adigu cala kulli xaal tuulay roo fiican bahayd ilaa been looma sheegay ya meesha cid loo beeru noqotay mooyaane tuulay iska fiican baad ma sha Allah ya dadkeedu la jecel yahay soo dhaweeyeen marka adigu saasan ku nimi jarmalka anagoo 10 qof 10 qof tuuladaasna la geeyay ilaa ay 1994 markaan ku noolayn dabeedna waxaan soo degnay magaalada Mönchengladbach la yiraahdo Mönchengladbach waa magaalo weyn weeyaan Soomaali badan iyo mataqaana Soomaalida aan soo dhawaanayna ayaan u soo degnay ka bacdi iskuulka halkii baan dabeedna waxaan ka bilaabay galaaska 8aad ay maadaama markaa bartay luqadii galaaska 8aad ilaa galaaska 10aad waxaan dhiganay iskuulka la yiraahdo Gesamtschule oo af Ingiriis laga yaqaan comprehensive school markii aan dhameeyay ka bacdi waxaan bilaabay makaanignimo 3 sano iyo badh shirkadda Opel la yiraahdo ayaan ku bartay tii baan u shaqeynayay adigu ilaa iyo 2002 2004 ayaa waxa aan damcay in aan wadankii qabto oo aan dabeedna bal soo eego cayn ku yahay maadaama la yiri nabad baa ka jirto oo waa kan sidano dabeedna 2004 baan qabtay waxaan joogay 4 sano alxamdulillah rabbil caalamiin waan ku guursaday 4 sano halkaas deganaa gurigii aabba ayaan degay ya family walaalahay inta kale halkan joogay jarmalka 2007 dhamaadkiisii markaan ka soo noqday jarmalka ayaan ku soo noqday magaalada Mönchengladbach iyadana waxa aan joogay qiyaas ahaan ilaa 3 bilood ka bacdi wadanka UK la yiraahdo aan qabtay wadankii horta hadaan idin ka sheekeeyay marka aan qabtay horta family oo dhan wuxuu wada joogaa jarmalka cidna kama aanan garanaynin adigu horta bilowgii waxay ugu noqotay cidlo laakiin haddana waan u adkaystay oo marka aan maadeerada iyo batay aan isbaranay dadkii la iska baray qasabna magaalada ku nooshahay adigu muddo dhan 4 sanadood u dhawaad saaxiibay asxaabaad yeelanaysaa taas waa qasab weey ilaa diriskaagana ha noqotay marka UK sababta tagay in walaalkay ah ayaa halka ka bilaabmay ganacsi waxaanu ka furtay dhakhtarka la yiraahdo German Doctor and Clinic marka sida awoodeed ban UK u tagay si dhakhtarka mataqaana aan uga shaqeeyo ya aan mataqaana reception ka u fadhiyo ilaa dhakhtar meeyay on mataqaana ballamaha iyo waxyaabaha aan sameeyo 4 sano ayaan joogay marka shaqadii adigu walaalkay dadka lagu wareejiyay
ماشي دبادامي متقنا ولا لا أنا كنت شوقين فاميلي أنا كنت شوقين تواد سجع عدلاني سوا وح كام قرن مركز تتكلم قنت هاي متقنا فاميلي غير كتتكلم قنت خاصة هو أبي هذا عيد كنت شوقين ولا علي نووي وحبك صوت شديني كوسو علنا مقالة دي ساعات ما دبنا تشرم كوسو النقطة مش يمكن باخ يحافظنا كلا قاينين ده يا شمبروي جاي قاينين حتى horta hargeysa mataqaanaa waxa weeye waa horta meesha loo dhashay ya waa wadankaagi yacni waxa muhiimada kale ee dareemaysa mataqaanaa inaanad ahayn qof ajnabi ah oo mataqaanaa dadka sida halkan inuu joogno kala deemka halka marka lagu eego ninkii madowga baa tahay moogta waliba khaasatan waqtigan la joogo bari hore waa la jeclaa madowga laakiin waqtigan la joogo yacni waa adduunka dhan baa iska xumaaday laakiin haddana waa wadankaagi dee waa adoon karta arin hebel baan ahayo sidoo dee qof jira tahay halkan ma taqaana dee waa adigu iska adoon ka yar mid iska socdaa tahay marka adigu saas ay hargeysiyo ay ka fiican tahay qaasinta Soomaaliland oo reerkii la yaqaano aabo la yaqaano oo dee lagu aftirinayo oo lagu soo dhaweynayo waa ina Maxamed Guulad leeyahay taas waxa weeyaan waxyaabaha dee ma taqaana aan wax la mid ma jira dee ingiriiska waxaan deganaa magaalada la yiraahdo Hayson Harlington waxaana weeye West London bay ka tirsan tahay waxaana degan Soomaalida ugu badan ay degan West London ingiriiska waa iska yacniga si jarmalka kale ma aha wax sharci ku samaysan albaab hortiis baa inta iska dhigata iska furanaysa waa in Afrika joogo oo taas ay ka duwan yahay mataqaanaa ingiriiska jarmalka ay ku kala duwan yihiin intay sharci noqoto marka jarmalka taas ku fiican yahay wax discipline ku socdo weeyaan tabaadna saas ayaan u imi marka laga yimaado reerka xataa iyo family-ga iyo dadkaas ila waan soo boqon karaa waa laba talaabo isu jirtaa adigu waxaan rabay meesha systemka ku socota ingiriiska maanta guri baad karaysanaysaa Brito Lolinka Sri Lanka ku imanay horreeya iga bax ya adigu waa meel iska rough road waa iska Afrika dee ilaahay hana gaarsiiyo Afrika Allah wax la marto qasab waa ku noqonaya goor noqoto waa ku noqonaya laakiin haddana dee waa adigu in 30 sano jooga hadda meesha Yurub marka 40 sano laga reebo aan joogay wadankii marka adigu horta dee beeniyana idin sheegay aniga halkan gurigeyga inta sanadana halka u dhashay dee halkan haddana meeshaan la qabsaday dee laakiin haddii wadankii aan la qabsan la kusoo kori la xagaas labada jeclaan lahayn deganaano future-ka Soomaalida gurbaha jooga waxaan anigu kula talin lahaa ma dadkii hore mise dadkan dambe dadkii hore doorta waa dad discipline iyo edeb ku socda nidaamku jarmalku sameeyay ku socda laakiin dadkan halka imika soo galay ilaahay u soo adeeyay wax kale ku tilmaamo garan maayo maadaama u badan yihiin dhalinyaro soo wada tahriibtay oo dhibaato soo martay Liibiya iyo meelahaas markay iga sheekeeyaan anigu u dhadaan idinku dacda joog maxabada ay soo galiyay maxaa idin keenay naftiina maxaad u halaagaysaa aan idhaahdo haddana dadku markay arkaan dadka reer Yurub markay xagga tagaan oo mataqaanaa ama dadkan guryaha ka soo dhistay qofkii bini'aadmi hadda waxba galay saas dabadna badan la isku soo wada tuuraya dad badan oo wanaagsan way jiraan qaar badan oo xumin way jiraan ya marka waxaan kula talin lahaa dadkan imika cusub حق النبض متقنا كشقيان iyo متقنا sharciga meesha ha bartaan Soomaalida wadankii jooga wallahi hadii aan anigu halkooda iska jooga wax kan kula taliya garama abtii waa wadanka waa nabad ya maadaama waliba waqooyiga koonfur ma kala aqaan anigu barigaas ay ugu dambeysay 89 laakiin waqooyiga waa iska nabad waa meesha imka dadka oo dhan wada yaacayaan ay dadka oo dhan u sii wada socdaan ya waddankaaguna waa waddankaagii dee meel iska saartagtaba Soomaaliya soo madaxanaysa unda ya waxaan jeclaan lahaa mataqaana kuwan dadka soo yaacay halkooda iska aaminaan ya meeshan waa soo xumaanaysa maalin ka dambe ay is soo bedelaysaa waa ka maalintii aan jarmalka nimay waxaan ahayn 10 qof ma sha Allah maanta waxaan maraynaa 30 ya anigu soddon iyo koob soddon ma aan kala tiro inaan tiriyo mooyaane ma garanayna laakiin soddon ku dhawaan dhaafnay
marka waxaad garanaysaan inta sanad wadanka joognay kuwii ku dhashay meesha ayaa maanta wax noo sii dhalay alxamdulillah ilaahay baa iska leh marka maadaama mataqaanaa aan idin leeyahay wadankii waxaan ku noqday qof cidloobay soddonka maanta haddii la joogi lahaayeen wadankii Hargeysa ma ka soo noqdeen inuu Hargeysa halkaas aan ku wada noolaan lahay waa ka shirku halkaas igu xidhan yahay assalaamu calaykum subscribes